waxaan aragnaa dood badan oo ka taagan in dumarku ay yihiin naaqisaatu caqlin wadiin naaqisaat caqlin wadiin inay yihiin nebiga ayaa sheegay sala allahu calayhi wasalam nebiga markii la weydiiyey maa nuqsaanu caqlihaa nuqsaanta caqligeeda ku sugan waa maxay markii la yidhi wuxuu yidhi alaysat shahaadatu lmar'atayni bishahaadati rajul haweeneyda miyaanay marag furka laba haweeney ah la mid ahayn hal nin maragiisa ayuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam markii la weydiiyey maa nuqsaanu diinihaa diinteeda nuqsaanteeda ku suganna waa maxay markii la yidhi wuxuu yidhi alaysat idaa xaadat lam tusalli walam tasum haddii ay xeedo oo dhiigga caadada uu ku dhaco ma waysan salaada iyo soonka ka tegaynin ayuu yidhi nebi sal allahu alay wasallam taasna waa nuqsaantii diinta nuqsaantii diinta ee ku sugneed wax dood ka keena ma aanan arkin oo dhahayo dumarka raggay la mid yihiin nuqsaan diintooda kuma sugna waqti kasta way duko karaan waqti kasta way soomi karaan laakiin waxaa dood laga keenay inay nuqsaan ku sugan tahay caqligeeda nuqsaanta caqligeedana waxaa ugu wacan daciifnimada xusuusteeda maadaama laba markhaati oo dumar ah lala mid dhigay hal markhaati oo rag ah si loo hubiyo saxnaanta marag furkeeda maadaama ay hilmaami karto oo wax aan ku jirin ay ku dari karto ama wax ku jiray ay ka reebi karto ilahay qur-aankiisa siduu ku leeyahy wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum fain lam yakunaa rajulayni farajulun wamra'ataani haddaysan laba nin aan la helaynin hal nin iyo laba dumar ah booska ninkii kale meeqaa la geliyey laba dumar ah ayaa la geliyey miman tardawna min ashuhadaa an tadilla ixdaahumaa fatudakira ixdaahuma alukhraa maadaama midkood ay iloobi karto tan kale si ay u xasuusiso nebiga sala allahu calayhi wasalam waa inaan aqbalno xadiidkiisa yaraanta garaadkaas uu nebiga noo sheegana nuqsaanta caqligaasi uu nebiga noo sheegay sala allahu calayhi wasalam waa naxariis ayaga loogu naxariisanayo si loogu naxariisto loo wanaajiyo waxyaabo culus aan loo saarin taas ayay keenaysaa labadaas keliya ayaa la sheegay inay nuqsaan uga sugan tahay inta kale xagga taqwada iyo xagga alla kacabsiga xagga dadaalka inay cilmiga barato inay awlaadeeda tarbiyeyso waxaasoo dhan nuqsaan ugama sugnaa haddii ay dadaasho gabadha waxay markaasi cibaadada ka wanaagsanaan kartaa ninka cibaadadiisa marka nebiga sala allahu calayhi wasalam xadiidkiisa in dood laga keeno waa arin halisteeda leh qof walba oo muslim ahna waa in ay iska ilaaliso